munaasabadani maanta waxa ay muhiim u tahay caalamka oo dhan waxay kaloo muhiim u tahay warfidiyeenka Puntland oo aan filayo in dhawaan uu u bilaami doono waji cusub kadib marka aynu si dhameystiran u aasaasno guddigii warbaahinta ama guddigii sare warbaahinta Puntland oo xeerkii warbaahinta ee dhawaanta la ansixiyay uu dhigayo taasi oo adigana ku ah page cusub isla markaasina aad kula jaan qaadi doonto hanaanka cusub ee la doonayo in lagu soo afmeero khilaafaadka u dhaxeeya mar walba xukuumadda iyo haddii alla ku roon yahay warbaahinta. waxaan hambalyo gooniyo u dirayaa maadaama gabdhaha la soo hadal qaaday aan gabar ahay guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed runtii oo meelo kala duwan oo Soomaaliya iyo caalamkaba ka shaqeeya oo ku shaqeeya mihnadan saxaafadda oo run ahaan si guudba ah mihnad iska dhib badan oo rag iyo dumarba marka la yiraahdo mashaakilkeeda wadata haddana iyadoo sidaas gabdhaha ku dhiiraday oo mikrofoonkoodii iyo kaameradooda wata una hardamaya runtii waxaan ugu hambaleynayaa maalintan waxaan u rajeynayaa insha Allah inay sidaa ugu sii dhiirinaadaan shaqooyinkooda. runtii waxaan cambaaraynaynaa waxyaabaha micnaha civil society waxyaabaha tacadiyada loo geysto ama loo geystay dadka saxafiyiinta Soomaaliyeed meel kasta ha joogaan waxaan codsanaynaa khaasatan in dawladda Puntland ay hoos u fiiriso arrinka hadda universal oo laga hadlayay iyo kuwa kalaba. aniga marka halkan waxaan idin balaqaadayaa wariye aan si sharci loo marin horena oo sheegay oo askari qabsan karto ma jirto aniga laga tagay booliska ma dhici doonto mana dhacayso laakiin wariyaha dambiilaha ah oo itax saxaafadda ku xadgudba hab sharci loo marayaa maxkamadda u yeeraysa wixii uu mutastana waa maraya arrinta kiiska universal waan ku jiraa Faisal waa ka wada hadlay dawladana waa ka wada hadlay sida ugu fiican ee ugu macquulsan ayaan ilaahay idinkiisna ku dhameyn doonaa laakiin waxaan idin sheegayaa yadina qoon jaantar ragoyn noqon saxaafad baa la hadlaa mataqaana afkaada wuxuu ku soo dhac ku hadal qof madaxweynaha iska cay wasiir iska cay waxaas wax soconaysa ma suxufigu waxa baaro aniga wasaaradii hala baaro musuqmaasuq laga baaro diyaar baan wahay dawladuna hala baaro wax cadeyn hala keeno suxufigu xaq buu leeyahay in wax baaro in wax dhaleel xaq buu leeyahay laakiin wuxuu wax dhaleeli karaa waa inuu wax cadeynteeda